كهالليني maanta isugu yeernay komitiyadii lagu magacaabay CSG waxaana ka hadlaynay abaarahan iyo kuleelkan bilowday macnaha warihii oo badod maaragtay meel badan ay ka qalaleen bulshadii oo ku soo noqotay ceelashan saa ogsoontii markii aad loo isticmaalo jabitaanka uu badnaanayaa waxaa kaloon ka hadalnay qaybaha countiga qaarkood in cudurro ay ka dilaaceen oo cudurro xoolaha dhukaan iyo qarir si noola sheegay waan ogsoonnahay in aadna soo hayo macnaha bishii barakaad badneed oo ramadaanka kusoo hagaagaysana waqti kuleel badan uu jiro abaarana ayna soo maaragtay fool saaran yihiin marka waxaan kaloon ka hadalnay in aan ku dhaqaaqi laana in aan bixinno lacagihii baasariga oo sanadka looga tiragalay sababtina ay keentay laba shayba nidaamkii sharcigii noo soo saaray miisaaniyadda dowladda oo lala soo daahay oo kor ka soo daahay horana aad uga hadlay lacagihii markii kor laga soo gooyey oon ogaanay haddana wixii nala siiyey waad ogsoontihiin haddana hadda kees kale ayaan nahayo oo isbiikayaasha 47 oo Kenya ayna geeyeen oo ay leeyihiin lacagahan la gooyey qeybaha anaga naga la gooyay ayaa badan tii waxay xanibtay in la sameeyo wax la yiraahdo supplementary budget oo lagu noqdo miisaaniyaddii oo laga saxo wixii kor laga soo gooyey oo macnaha la isticmaalo lacagtii marka isjiidkan wax badan baad kulleeyta maaragtay asdaahinaya wuxuu sidaa tahay anagoo tii ogaa haddii aan dhahnay bal aan soo diyaar gelinna wixii tabartayne ka hortagga arrimahan macnaha abaaraha marka waxaan u sheegaynaa bulshada meelaha ugu dardaran oo warihina ay qalaleen boholna aad u dhaweyn ayaan ka bilaabaynaa inaan biyo maaragtay aan u geyno maalimo kala dheerba ha ahaatee oo kharashaadka aan waxyaabaan u hayna sanadkan aad buu u yar yahay ayna keenayso waxyaabo badan oo horaan u sheegay midda kale qalabaynta boholska waxaan bulshada u sheegaynaa haddana waxaan ka bilaabaynaa boholyaasha wajwasko ku jiro oo dhibka naga haysta boholyaasha waxaa weeyaan waayna bateen dadkii gacanta ku hayo maamulaan inay dhiibaan ma rabaan jabitaankoodina way bateen bulshadana lacag baa looga qaadayaa qoladii lacagta qaadaysina inta badan markii waxa laabaan waxay ku leeyihiin countiga ha hagaajiso kama hadlayaan lacagihii arunayn meesha ay galeen marka anagooba rabna inaan wada caawino haddina kuwa countiga usoo saaraya magacii dhaqaalaha oo gacanta wajwasko ku jiro ayaan ka bilaabayna insha allahu taala doodii aan kulley la wadnay controlaga oo ahayd in ay noo fasaxdo weliba inoo socotaa waxaan aaminsannahay in aan ka dhadhacsiin doonno in ay fasaxdo baasariga markay ugu liidata kan sanadkan socdo horta ay fasaxdo kan damba bal waqti looga dooda ayaanba u haysanaa laakiin hadduu soo daaho labadaas shay oo supplementaryga maritaankiisa iyo xanibaadka cusub oo controlaga keentay unbaa naga daahin kara marka waqtiga ramadaankan haddana waan fiirinaynaa insha allahu tacaala wixii aan tiri karno miisaaniyaddana sanadkan aad bay maaragta u culus tahay runtii oo macnaha cariiri weyn baa naga haysto kana imaaday waxyaabaha lacagahaasi kor laga soo gooyey iyo kharashaad fara badan oo kale oo shaqaalaha xaggood noogu dirsamay laakiin sidii horon ay ahaan jirtiba ay kuleelka tii badanaay baan dhaha waa inaan kasii fikirna seen dad ku badbaadina
sababtoo badbaadada dadka ayaa ka muhiimsan wax walboo kale oo aan qabanno marka waan isku daynaa wixii tabar eh wixii kar weynana waa wixii tabar ay dhigatay aan leeyahay insha allahu tacaala hay-adaha nala shaqeeyo oon maanta la kulannay oo la yidhaahda donors NGOs partners si loo magacaabo ayagana waa in ay ka qayb qaataan taakulaynta bulshada la taakulaynaya waqtiga ay dhiboon yihiin sida waqtigan oo kale waa in hay-adaha kale oo ka weyn oo la shaqeeyo oo caawiyo ay proposal iyo waxyaaba u soo gudbistaan waqti fiican waxa shirkan u yeelan waxa weeyaan in qof walba oo hawshan ku jiro si digtoonaado oo wixii hadda sii qaban karna sii qabto hawsha si u soo cuslaatana aad wixii maaragtay isu diyaarin karo isu diyaariyo waxaan leenahay cawska yar oo qalalay oo soo haray aan la gubin dadka reer miyigood dabka meelaha ku shito ku sigaarkii tubaakada isticmaala cawska naga gubina waayo waxyaabaha hadda maaragtay abaarta inkastoo jirto yareeya cawsas maaragtay cawska meelaha ku jiri lahaa qaarkood horaana u gubteen xogaha yar oo xoolaha inay ku badbaadaan aan rabno waqtigan ilaa iyo intii roob aan ka helayn insha allahu tacaala aan la gubin aan leenahay bulshada insha allah